reer galbeed maanta uu ogyahay inuu daalay dhallinyaradoodii baa lunsan akhlaaqiyaadkii ka lumeen dadkoodii xumxumaabaa kor soo maraya dhaqaalahoodii baa sii burburaya dhashoodii baa sii yaraanaysa waddannada qaarkood 1.25 bay marayaan that means boqolka qoys labada boqol qof ka kooban boqol nin iyo boqol gabdhoodii dadkii bedeli lahaa ma dhalaan 125 qof bay dhalaan that means tirada waddankaasi yaraanaysa Soomaaliya 30 sano ka hor intay leekay dadku nin walba awowga 30 sano ka hor awowga intuu dhalay misayahay maanta say misuuyi waxaad garan kartaa Soomaaliyiinta intay badatay waa intaa laga yaabaa awowgay 30 sano ka hor ama 40 sano ka hor haddaan tiriyo wax gacanta lagu tiriyo inuu ahaa maantana waxaa laga yaabaa inay boqolaaliyiin nin walba Soomaaliyeedna waa sidaa tan yani intaasoo jeer baa laba laabmay iyana waxaa laga yaabaa inay tiradu intii awowgii ahaa ka yaraatay 40 sano ka hor awowgii intii uu dhalay ku tirsanaysay maanta inta ku tirsatay inay ka sii yartay idan waa dad gaboobay oo tiradoodu sii yaraatay oo dhalintoodu sii baaba'ayso oo dhaqaale burburna ku socdo oo xataa unitigoodii uu hadda bilaabmay inuu dib u gelgelmo Yurub oo tan sii kala googo'aysa Ingiriis ka baxay tii kale weli waa isku oodan tahay ilaahay balaayooyin kala buu keeno corona iyo wax kala soo baxay dimuqraadiyaddii dunida loogu bushaaraynayo waa taale ninna ictiraafi maayo tii Afrikaanku kale imka waa uun ka askari yar tahay sidii baa la isu hayaa waxba kaba jiraan madaxweynaha in la soo taagan yahay systemku ma aha system fudud oo horta habeen iyo maalin dumaya maaha saamaha laakiin waxaynu tilmaamaynaa naqaad dacfigii inay bilaabmeen ay muuqdaan meelihii liidashadu ka jiray way soo biirayaan valueskoodii ay yaqaaneen qiyamkay hayeen wuu sii lumaya xataa qiyamkii dowladnimo ay lahaayeen ayaa sii lumaya dee inay iyagu lumaan macnaheedu maaha inaad adigu xoogaysatay haddaad adna ka sii liidato de wasal halkii cadow waa jabay adigu maad guulaysantay adoo haddaad wax noqotaad guulaysanaysa